كانوا مداد وحوق بدن وحوق بلاوday baraha bulshada iyo waliba warbaahinta inteeda kale wuxuuna dagaalka u dhaxeeya taageerayaasha qaar ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka waxaana lagu bixiyay dhaqaale aad u tiro badan taas oo ay bixiyeen Fahad Yaasiin iyo Farmaajo waxayna u arkeen wadada kaliya ay ku sii joogi karaan filla Soomaaliya in midan ay tahay waa warbixin la yaab leh oo dhamaantiin aad la yaabi doontaan dukumeentiyada iyo cadeemaha warbixintan ay xambaarsan tahay kulanti wacan oo wanaagsan aqyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxa idin leenahay waqtiga idin wacnaado dhamaantiinba muuqaalka la gareeyo cid walba muuqaalka la gareeyo waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeena umuuraha leedahay ilaahayna u saala ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaadda uu barakaya inta awlaadon kaana ilaahay awlaad baari hasi inta gurdoon kaana gur wanaagsan mustaqbal wanaagsan ee bawayna hasiyo qof walba muuqaalka sheerta ku qabtaa la gareeyana waxa rabbi subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeena mar adduunyo ay filan inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siyaa dambiga waalidkoodana ee buu dhaafaa rabbi subhanahu wa ta'ala uu ku azuma jannatul firdaws ala xaasidka waxa leenahay wa min sharri xaasidin idha xasad al xaasid la yaflah bi idni allah al karim waxa ku dambeynaya hoogi qasaaro ummadda Soomaaliyeedna hogaamiya daacada rabbi subhanahu wa ta'ala hasiyo baraha ay ku kulanta bulshada sida Facebook iyo waliba warbaahinta inteeda kale waxa ka bilowday dagaal u dhaxeeya taageerayaasha qaar ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka waxaana la filayaa qaar kalena in dagaalkaasi uu ka dhax qarxo hadda dagaalka waxa laga dhax qarxiyay hogaamiyaasha Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur taageerayaashooda kuwaan oo kala wata xisbiyada la kala yiraahdo xisbiga wadajir oo hogaamiye Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo xisbiga nabadda iyo horumarka oo hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxa sidoo kale la filayaa in la iska hor keeno Xasan Cali Khayre iyo sidoo kale Cabdikariin Xuseen Guuleed Sheekh Shariif iyo Daahir Maxamuud Geele Axmed Madoobi iyo Danni waxaana qorshahan soo hagaasimay taliyaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA wariyihii hore Al Jazeera xubin ka tirsanaa golihii dhexe dagaalyahanada Al-Shabaab Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kaas oo u arkay xalka kaliya ee Farmaajo uu ku sii joogi karo filla Soomaaliya inay tahay in la isku diro hogaamiyaasha mucaaradka taageerayaashooda isla markaana kacdoon uu ka bilaabo xagga baraha bulshada taas oo u dhaxeeya isla hogaamiyaashan taageerayaashooda waxaana la sheegay in arintan Fahad Yaasiin habeenadii ugu dambeeyay uu ku bixinayay dhaqaale aad u tiro badan dhaqaalahan oo lagu sheegay inay gaarayso ilaa 100,000 oo dollarka Mareykanka ah waxaana lacagahan la siiyay shakhsiyaad ka mid ah mucaaradka gaar ahaan kuwa si weyn u isticmaala baraha bulshada laguna tiriyay inay ka tirsan yihiin mucaaradka odayaal dhaqan iyo waliba siyaasiyiin afmaal ah kuwaas oo lagu tiriyay inay ka tirsan yihiin dhanka mucaaradka iskana dhigaya inay la jiraan Xasan Sheekh ama ay la jiraan Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxayna weerarayaan midba midka kale ayuu weerar culus uu ku qaadaya waxaana dagaalka qaybtiisa labaad uu dhaxmaraya Cabdikariin Guuleed iyo Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii laga adkaaday la eriyay Sheekh Shariif iyo Daahir Maxamuud Geele waxaana sidoo kale dhawaan bilaaban doona dagaalka qaybta ugu dambeysay oo dhaxmari doona taageerayaasha Puntland iyo Jubbaland ayadoo qoorta la isku gelinayo Danni iyo Axmed Madoobe waxaana lagu arkayaa baraha bulshada odayaal dhaqan oo lacag la siiyay siyaasiyiin lacag ka soo qaatay Fahad Yaasiin iyo sidoo kale wariyaal iyo dad afmaal ah oo lacag laga soo siiyay filla Soomaaliya kuwaas oo xambaarsan afkaarta Fahad iyo Farmaajo isla markaana iska dhigaya in mucaarad ay yihiin oo ay la socdaan mid kamid ah hogaamiyaasha mucaaradka isla markaana fulinaya danta Fahad iyo Farmaajo ay leeyihiin xogtan oo ah mid aan ka helnay filla Soomaaliya waxay xaqiijinaysaa in dhaqaale badan taliyaha hay'adda NISA uu siiyay shakhsiyaad isticmaala baraha bulshada kuwaas oo maantaba qaybtii ugu horeysay warbixinadooda baahiyay kuna sheegay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur weerar culus uu ku soo qaadeen taageerayaasha Xasan Sheekh Maxamuud waana qorshe uu soo abaabulay taliyaha hay'adda NISA Fahad Yaasiin iyo Farmaajo waxa muhiim ah taageerayaasha hogaamiyaasha mucaaradka ee ku bidoobay madasha musharaxiinta in ay isdajiyaan isla markaana ay ka fiirsadaan kuwa dhagarta xambaarsan ee filla Soomaaliya lacagaha ka soo qaatay doonayana inay isku diraan taageerayaasha hogaamiyaasha mucaaradka oo hadda qarka u saaran inay fadhiistaan filla Soomaaliya Fahad Yaasiin iyo Farmaajo ayaa waxay ku jiraan rafashadii ugu dambeysay ayadoona international community-ga ama beesha caalamka ee fadhigoodu uu yahay xalan leh laba mid ay u soo jeediyeen madaxweynaha waqtigiisa u dhamaaday Farmaajo in istiqaalada uu soo wareejiyo ama inuu qoro warqad uu ku sheegayo inuu yahay musharax madaxweynenimo isla markaana uu iska wareejiyo dhammaan
dhammaan madaxda ciidamada qalabka sida iyo waliba saxiixyadii kale uu lahaa waqtiga uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya uuna soo xaadiro shirka lagu qaban doono xalan leh waxaana la rajaynayaa farmaajo in labadaas midkood uu sameeyo ayadoona ay u badan tahay haddii uu quustay inuu dhiibi doono warqadda istiqaalada uu ku sheegayo inuusan ahayn musharax madaxweynenimo laakiin Fahad Yaasiin ayaa hadda bixinaya dhaqaale aad u badan si uu u qaldo ra'yiga bulshada isla markaana uu isku diro taageerayaasha madaxda midowga musharaxiinta haddaba la socota kumiintiye iyo waliba warqadihii lacagaha lagu bixiyay oo aan helnay goor dhowna halkan aan soo gelin doono